daawadayaal kusoo dhawaada saxafi films channel oo daga barateen barnaamijyada aynu kaga hadalno aktarada filimada ka sameeya shirkadaha kala gedisan ee dalkaasi Hindiya filimada ka soo saara. daawadayaal barnaamijkan waxa aynu kaga hadli doonaa jilaaga daadayar ee Varun Dhawan. su'aashii ahayd Varun Dhawan goorma aad guursan doontaa mase laga yaabaa in sanadkan 2018 aad guursatid? muxuu kaga jawaabay? jilaagan ayaa su'aashaasi markii la weydiiyay waxa uu kaga jawaabay waan jeclaan lahaa in aan sanadkan gudihiisa guursado. sida la wada ogsoon yahay jilaagan ayaa waxa ay saaxiibo yihiin oo xiriir jacayl ka dhaxeeya isaga iyo gabadha lagu magacaabo Natasha Dalal. gabadha lagu magacaabo ninka lagu magacaabo Virat Kohli iyo Anushka Sharma. aqalgalkoodii ayaa waxa uu ku dhacay si la yaab leh, waxaana weliba aad uga yaabay taageerayaasha labadan iyo dhammaanba xubnaha ka tirsan shirkadda filimada sameysa ee Bollywoodka. sidoo kale mar ay wariyayaashu ku kadiyeen ma laga yaabaa in sidii kadiska ahayd ee Virat Kohli iyo Anushka Sharma aqalgalkoodii u dhacay oo kale kiina uu noqdo. wuxuu yidhi waan jeclaan lahaa, balse arrintaasi u malaynmayo in ay aniga igu dhici doonto. waxa uu yidhi waa la ogsoon yahay in aniga iyo Natasha Dalal ay sheeka naga dhexayso, balse arrintan sidee ayay aniga waalidkay u arki karaan? isaga oo hadalka sii wata wuxuu uu yidhi aniga Punjabis ayaan ahay, waalidkeena waxa ay jecel yihiin buu yidhi in guurkeena marka uu dhacayo uu noqdo mid hidiga dhaqanka ku salaysan. arrintaasina waxaad moodaa buu yidhi in dhalinyarada maanta joogta ay ka lugjuudayso oo aysan raalli ka ahayn, balse waa waalid. waxa uuna ku sii daray waxaasoo dhanba waxaa ka sii daran waqtiga la taagan yahay inaan guurgalo, ajandahayga amaba qorshayaasha igu soo socda kumaba jirtaba. aktarkan ayaa waxa uu sameeyey laba filim oo labadaba ahaa laba filim oo guuleystay October iyo Suwadaga. intaasi kadib jilaagan waxa uu ka dhistay apartment cusub magaalada Mumbai, kadibna waa uu soo wareegay. waxa uu yiri anigu haatan waxa aan ku fikirayaa buu yiri oo aan aad ula dhacsanahay guriga cusub ee aan u soo guuray, waxaana rabaa buu yiri gurigan cusub ee aan soo degay inaan waqti badan ku qaato oo aan kaligay meesha ku ahaado, ee uma baahni buu yiri inay haatan aniga ii timaado gabar ama baxaas buuq iyo frustration aniga igu furta. waxaan jeclahay waqtiga kaligay aan guriga cusub ku qaadanayo inuu ka mid noqdo xasuusaha aniga ee gaarka ah oo aan dib u xasuusto waayahayga dambe. Varun Dhawan ayaa waxa uu ku jiraa sida ay saxaafaddu ka qortay waqtiyadiisa ugu wanaagsanaa, waxaana lagu tilmaamaa aktarkan inuu ka mid yahay aktarada ugu guulaha badan oo aan aalaaba filimadiisu aysan noqon filimo falooba oo lagu khasaaray. daawadayaal barnaamijkii aynu kaga hadlaynay aktarka Varun Dhawan iyo waqtiga uu guursan doono, balse ugu dambeyn aktarka waxa uu kusoo gabagabeeyey inuu aad u jecel yahay sarta cusub ama apartimentada cusub ee uu ka dhistay magaalada Mumbai inuu waqti ku qaato. waa kaafi kala dheeri qaabka saxaafadda ee uga hadashay iyo su'aalaha la yaab kale ee uu jilaaga da'dayar ku jawaabay. daawadayaal barnaamijkeedaas ayaan kusoo keenayaa. barnaamijka waxaa idin daadiinaya anigoo ah Caaqil Cabdi Faarax. waxaad ka daawanayseen saxafi films channel. hama ogaanina inaad subscribe tirahdaan, fikirkiinana aad ka dhiibataan qaybta hoose ee commentiska. inagoo isku duuban oo baada saxafina waxaynu idin leenahay sidaa iyo nabad gelyo.